Turkiga waxa uu muujinayaa awoodiisa geeska Afrika uu ku leeyahay. Waxa uu isu soo dhaweeyay Soomaaliya iyo Itoobiya oo markan xal rasmi ah ka gaaray xiisadii ka dhalatay heshiiskii dhinaca badda. Muuqaalkeena ayaynu caawa ku soo koobi doonaa Masar iyo saameynta ay ku leedahay heshiiskan Soomaaliya iyo Itoobiya ay gaareen. Waxana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusub tahay fadlan ku soo biir page-kayga oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran si aad halkan ugala socoto warbixino muuqaalaan had iyo jeer ku soo baahiyo. dowladda Turkiga gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan oo u wakiishay wasiirkiisa arrimaha dibadda dalka Turkiga inuu isu soo dhaweeyo Soomaaliya iyo Itoobiya isla markaana meesha laga saaro madmadowga dhinaca diblomaasiyadda ku qotoma ee ka dhashay heshiiskii muranka badan dhaliyay isla markaana qariska tuurnimada ahaa ee Abiy Ahmed la galay bilowgii sanadkan madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Rajab Tayyip Erdogan waxa uu muujiyay awoodiisa geeska Afrika iyo sida ay kaga go'an tahay inuu ku sii nagaado Soomaaliya. Wuxuuna Turkiga u muuqanayaa mid hagi kara istiraatiijiyadda dhinaca ammaanka guud ahaan geeska Afrika maadaama saldhigga ugu weyn ay ku leeyihiin geeska Afrika uu ku yaalo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Turkiga waxa uu xiriiro kala duwan labada dhinac uu la sameeyay Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed labada dhinac waxa uu kala hadlay sidii isu soo dhawaansho ay u muujin lahaayeen meeshana looga saari lahaa khilaafka dhinaca diblomaasiyadda ee salka ku haya heshiiskii dhinaca badda ah ee Itoobiya ay la gaareen maamulka Somaliland. Rajab Tayyip Erdogan wadahadalladii ugu dambeysay uu la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh iyo Abiy Ahmed waxa ay sahashay in kulan foolka fool ah oo heer wasiir ah isla markaana laga soo hormariyay waqtigii loo ballansanaa in uu ka qabsoomay magaalada Ankara ee caasimadda u ah dalka Turkiga. waxaa kulankaasi goobjoog ka ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda dowladda Itoobiya iyadoo xogaha kulankaas aynu ka helayno ay sheegayaan in labada dhinac ay isu soo dhawaadeen. Itoobiya waxa ay gabi ahaanba meesha ka saartay damaceedii waalida ee qayb ka mid ah badeenna iyo hirgelinta heshiiska qariska tuurnimada ahaa ee Abiy Ahmed uu la gaaray Muuse Biixi Cabdi. Itoobiya waxa la sheegay in Rooshiya kaga bixisay gafkii weynaa ee madax banaanida Soomaaliya ka gashay. Waxaase dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in sinaba aysan u qaadanaynin in la farageliyo madax banaanideeda. Itoobiyana dhabaha ay wax ku doonayso in ay ka soo weecato oo dhabaha saxda ah oo ah in dowladda federaalka ay kala xaajooto damaceeda in ay si toos ah ay dowladda federaalka Soomaaliya kala macaamisho. Waa tallaabada ay Turkiga ku doonayaan in gabi ahaanba lagu soo afmeero khilaafka isla markaana heshiiska uu isugu soo biyashubto in Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka wada xaajoodaan damaca Itoobiya ee helista qayb ka mid ah badeenna. waxaase dowladda federaalka Soomaaliya kol hore ay sheegtay in sinaba aysan raali uga ahaanaynin in taaka ka mid ah biyaha Soomaaliya ay dowlad shisheeye ay qaadato. waxaase ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo dhawaan qoraal ku baahiyay bartiisa X uu shaaciyay in sinaba aysan uga tanaasuleynin damaca Itoobiya ee doonista marinbiyood. tallaabada isu soo dhaweynta Itoobiya iyo Soomaaliya waxa ay dabarjab xoogan ku tahay Masar oo u muuqatay in ay dab ku sii shidaysay xiisadan. waxaase markan Masar ay wafdi heerkiisu uu sareeyay ay u soo direen Soomaaliya si ay u xoojiyaan xiriirka kala dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. geeska Afrika isha ayaa lagu hayaa isbeddelka dhinaca siyaasadda ay ka hirgali doona dhawaan. shirka ka socda Turkiga marka la soo gabagabeeyo ee warka rasmiga ah laga soo saaro waxaa xigi doona kulan foolka fool ah oo ay yeelan doonaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. wixii warar ay ku soo kordha isha ku hay page-kayga oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran. nabadgelyo.